baro Arduino waa casharka koowaad waxaa idiin soo diyaari Somtronics ayaa idiin soo diyaarisa. Arduino waxyaalo badan ayaa loo isticmaalaa. Tusaalahan wuxuu idin tusayaa quadcopter ayaa loo isticmaalay. Waxaa kaloo loo isticmaali karaa robot cars ayaa loo isticmaali karaa. Waxaa kaloo aad ku xiri kartaa sensorska kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa jeegarayo hawada kuleelkeeda iyo qabowgeeda. Waxaa kaloo jiro shirkado ayaa waxay u isticmaalaan Arduino caafimaadka inay ku baaraan oo caafimaad shaybaar ay u sameeyeen. Waxaa ka mid ah blood pressure-ka ku cabiri kartaa, sokorta ku cabiri kartaa. System ayaa jiro oo ku dhisan Arduino ayaa jiro. Marka muxuu yahay Arduino? Arduino wuxuu ka kooban yahay board loo yaqaano Arduino Uno, taas oo leh microcontroller. Microcontroller-kaas oo nambarkiisa uu yahay Atmega 328B. Boardku waxay la imaanaysaa USB ayay also la imaanaysaa oo aad ku xiri karto computerkaaga. Waxaa kaloo u baahan tahay software-kii aad u isticmaali lahayd microcontroller-ka. Microcontroller-ka kaligiis ma shaqayn karo haddii aysan jirin software u sheegayso shaqada uu qaban lahaa. Haddana waxaan download gareynaynaa Arduino IDE ama Arduino software-ka. Waxaad type gareysaa Arduino software download. Markaa garaacdo waxaa kuu soo baxaya Arduino ugu koreeyo. Arduino garaacaysa. Waxaad tagtaa qaybta download the Arduino IDE. Versionka hadda u dambeeyay waxaa waaye 1.88. Marka haddii aad qabto PC oo Windows ah, waxaad u tegaysaa kan ugu koreeyo Window installer for Windows XP and up. Haddii aad qabto Mac, waxaad garaacaysaa Mac OS. Haddii Window aad qabto, marka Window aad klik gareyso, waxaad tagtaa just download. And then sida ujeedaan waa download gareeyay systemkii. Marka waxaad sameynaysaa hadhow markuu dhameeyo downloadka waa garaacaysaa kan ayaa klik gareynaysaa. Markaa klik gareyso waa download gareynaya. Programka markii uu download gareeyo klik gareey waxaa kuu soo baxayo screenka ayaa kuu soo baxayo. Screenka marka just waxaad tiraahdaa I agree klik gareey waxaa kuu soo baxayo screenkan kale. Just next garaac waxba ha taaban. Markaas waxaad samaysaa install dheh garaac install. Marka programkii ayuu install gareynaya wixii aad u baahneed oo Arduino la shaqeynaya meeshaas ayuu ku program gareynaya. Waxaad samaysaa USB cable-ka oo la yimi Arduino geli. Markaa geliso waxaa arkaysaa Arduino wuxuu sameynayaa nalalka ayaa LED-ga ayaa daarmaya. Picture-ka aad ujeedaan wuxuu ku tusayaa tusaale ahaan sida ay iskugu xirmayaan PC-ga iyo Arduino board. Markii cable-ka aad ku xirto labadooda ayuu ku tusayaa. Systemkaaga hadduu Windows yahay waxaa garaacda icon-ka ujeedaan oo Arduino ah ayaa garaacaysa. Markaa garaacda waxaa kuu soo baxay programkii. Haddana waxaan ka hadlaynaa Arduino Uno R3 boardka loo yaqaano. Boardkaas oo leh microcontroller wuxuu kaloo leeyahay inputs wax loo yaqaano digital inputs and outputs. Waxa uu leeyahay USB. Marka microcontroller-kaas magaciisa waxaa waaye waa Atmega 328B waaye. Waa maskaxdii boardka uu ku shaqeynayo. Marka board chipkaas ama microcontroller-kaas iskama shaqeynayo, wuxuu u baahan yahay in la program gareeyo. Marka programka wuxuu ugu imaanayaa USB-ga. Marka fiilada USB-ga aad ku xirto PC-ga, programkii wuxuu soo marayaa USB-gi wuxuuna u tagayaa microcontroller-kii. Marka microcontroller-kii shaqada u baahan tahay ayuu kugu qabanayaa asagoo fiirinaya programkii aad qortay oo maskaxdiisa aad gelisay. Waxa uu kaloo leeyahay boardkaas wuxuu leeyahay power supply, meel powerka uu ka siiyo circuitka ku xirmayso. Marka laba power ayaa jiro 3.3 iyo 5 volts iyo ground. Marka 3.3 iyo 5 voltskaas waxay ku xiran tahay circuitka aad ku xirayso quwadda ay u baahan yihiin. Hadday 3.3 u baahan yihiin 3.3 oo ku xiraysaa. Hadday 5 u baahan yihiin 5. Waxa uu kaloo uu leeyahay wax loo yaqaano digital port. Digital portigaas oo ah 13 pin ah uu ka qaataa informationka digitalka ah oo aga imaanayo banaanka aga imaanayo. Waxaa kaloo uu leeyahay wax la yiraahdo
PWM pulse width modulation oo ku siinayo frequency kala duwan. Majority-gan waxaa loo isticmaalaa markaad controleyso motor control, markaa motorka aad controleyso ayaa la isticmaalaa. Waxa uu kaloo leeyahay analog port wax loo yaqaano oo asagana uu ka qaato analog information uu ka qaato oo wixii kan waa analog kana waa digital. Tusaalaha aan ugu horeysiinayno Arduino boardka wuxuu noqonayaa LED blink, LED-ga daarmaayo ama damaayo. Waa tusaalihii ugu horeeya. Sida u jeedaan Arduino waxaan sameynaynaa, waxaan u baahannahay LED, waxaan u baahannahay resistor oo 220 ohm ah iyo LED. LED-ga lugta gaaban waa cathode, lugta dheerna waa anode-ki waa positive. Marka schematic haddaa u jeedaan kan wuxuu ka taagan yahay Arduino boardka ayuu ka taagan yahay. Waxaan sameynaynaa D13 which is portiga D13 ayaa waxaan ku xiraynaa resistor 220 ah. Resistorkaas lugtiisa labaad waxay ku xirmaysaa anode-ka oo LED-ga ayuu ku xirmaya. LED-gana waa part of diode ayuu ka mid yahay. Marka hash lugoo kale oo resistorka wuxuu ku xirmayaa LED-ga anode-kiisa. Lugta kale cathode-ka oo LED-gana waxa uu ku xirmayaa ground. Marka sidaa u jeedaan halkan D13 waxaa ka tegay resistorka lugtiisa labaad waxay ku xirmaysaa LED-ga anode-kiisa oo ah lugta dheer ayuu ku xirmayaa. Lugta gaaban oo ah cathode-kana wuxuu ku xirmayaa ground-ka. Marka circuit-kaas ayaan dhisaynaa. Waa tusaalihii ugu horeeyay. Circuit-ka blinky waxaan u baahannahay laba fiilo, midna waa black midna waa red. waxaan kaloo u baahannahay resistor qiimihiisu uu yahay 220. haddaa u fiirsa resistorkaas wuxuu wataa red iyo brown. red wuxuu ka taagan yahay first digit waa 2, second digit waa another red waa 2 kale. waxa kale la socda brown oo ah 1 waxay la mid tahay 10. 2 times 10 markaa isku dhifato wuxuu noqonayaa 220. waxaan kaloo aan u baahannahay diode-kan haysana waa red LED. lugta gaaban waa cathode waa negative, lugta dheerna waa anode waa positive. waxaan kaloo u baahannahay also circuit board. waxaan haysanaa circuit boardka yarka ah, kana waxaan awood u nasiina inaan ku dhisno LED-ga iyo fiilooyinka la socdo. tana waa boardkii oo uno ah. sawirka aad u jeedaan wuxuu na tusayaa software-kii oo Arduino isticmaalayo. marka ugu horeyso aan jeegareyno Arduino in uu ku xiran yahay software-kan uu shaqeynayo aan fiirino. marka waxaad sameynaysaa waa tegaysaa tools, waxaad tagtaa board, waa inuu kuu sheegaa Arduino Genuine Uno waa inuu kuu sheegaa. marka meeshaas check ayuu yahay. micnaheedu waxay tahay Arduino boardka waa uu ku xiran yahay systemkeena. tan kale aan fiirinayno waxay tahay portiga. waxaad tagtaa port, waa inaad fiirisaa
waa inuu sidaas oo kale uu kuu sheegaa Arduino Genuine Uno waa inuu kuu sheegaa. Haddii aad isticmaalayso Windows PC aad isticmaalayso, halkan wuxuu ku tusayaa COM1, COM2, COM3 saas oo kale COM port ayuu ku tusayaa. Marka taana waxay ku tusaysaa in uu ku xiran yahay. Code-ka la qoro oo loo qoro Arduino board laba qaybood ayuu u kala baxaa. Qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa setup, qaybta labaadna waxaa la yiraahdaa loop ayaa la yiraahdaa. qaybta koowaad setup-ka waa code-ka aan isbedelayn ayaa halkaa gelinaysaa. qaybta labaad oo loop-kana waxaa gelinaysaa code-ka uu ku shaqayn doono Arduino uu ku shaqayn doono ayaa halkaan aad gelinaysaa. Marka code-ka aad qorto waxaa u baahan tahay in aad fiiriso inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay. Marka waxaad fiirisaa check calaamadan ku dhehayso check oo kuu sheegaya verify ayuu ku leeyahay. Macnaha waa inaad jeegaraysaa code-ka aad qortay inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay. Waxaa ku ogaanaysaa masalan halkaan haddaan iska qorno wax aan iska qorqorno oon code ahayn oon dhahno verify aan dhahno, waxa uu noo sheegayaa haddaa fiiriso statuska wuxuu ku leeyahay wuxuu ku yiri was declaring in this scope. Macnaha wuxuu noo sheegayaa inuu qalad yahay. Marka taa waxaa ku ogaanaysaa code-kaaga inuu qalad yahay. waxaa kaloo jirto waxa la yiraahdo upload. Upload-ka waxa uu ku sheegayaa code-kaagii in aad u diri karto markuu aad verify garayso inaad u diri karto upload aad ku samayn karto u diri karto Arduino u diri karto si code-kii uu Arduino u isticmaalo. marka ka riixdo wuxuu ku sheegayaa inta byte iyo inta code-ka uu size-ka uu yahay oo loo diray Arduino loo diray. Marka sida ayuu u shaqeeyaa Arduino code-kiisa. Marka waxaan sameynaynaa hadda tusaale ayaan soo qaadanaynaa. Tusaalahaas oo ah LED blink sameynaya. Marka waxaad tagtaa file, waxaad tagtaa examples, waxaad tagtaa basic, waxaan soo qaadanaynaa blink ayaan soo qaadanaynaa blink. Marka code-ka blink ayaa noo yimi, kan waa iska xireynaa. code-kan waxaa loo yaqaana blink. uuna sameynayaa LED-gi ayuu daarayaa daminayaa halkii second. hal secondna waa uu daarnaanaya, hal secondna waa uu damayaa. code-kana waa example-ka ay qoreen Arduino ay qoreen weeye. Sida u jeedaan setup-kii waa code-ka aan isbedelaynin. loop-kani waxaa ku jiro code-ka isbedelayo oo maanta oo dhan shaqeynaya. Marka loop-ka wuxuu sameynayaa this function runs over and over and again. Macnaha kan ayuu computerka maanta oo dhan uu maaragtay isticmaalayo. Marka waxaan sameynaynaa waxaan u direynaa horta verify aan sameynaynaa si aan u jeegareyno code-ka inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay. Markaan jeegareynay wuxuu noo sheegay code-kii in uu sax yahay. Marka waxaan u direynaa upload ayaan sameynaynaa, waxaan u direynaa Arduino ayaan u direynaa. Marka Arduino u dirno rajaha waxay tahay in uu LED-ga uu blink gareeyo ayaan arkaynaa. Sida u jeedaan LED-gi waa uu blink gareeyo. Marka halkii second waa on ayuu noqonayaa, second-ka kalena wuxuu noqonayaa off ayuu noqonayaa. Marka software-kii waa uu shaqeeyaa.